inagu waxaynu nimi dhul dhisan oo dawladi ka jirto oo system leh oo nidaam waxbarasho leh oo falsafo nololeed leh oo qaanuun leh oo iclaam leh oo shaqaynaya waxaanaynu nimi inagoo kala daadsan oo kala firidhsan oo aan wada soconin waan mustaqbalkana aragti ka lahayn qof waliba meeluu dabada dhigo iyo meeluu nabad ka helo hadday ka badatana wax la cuno iyo xoogsi uu ka helo ayuu raadacaynayay inta badanna bini aadamku mushkiladda uu yaqaanaa buu xalka u raadiyaa mushkiladda uu yaqaano ayuu xal u raadiyaa mashaakilkeenu halkan ugu nimi maaha mashaakil xaggeennii ka jiray xaggeennii mashaakil nooc kalaabaa ka jiray xaggeennii cid ilaahay diidani ma joogin laakiin cid yara faasiqowda waa joogtay ilaahay lama dafiri jiray laakiin qof dadka dilaa waa joogay xaggeennii qof been sheegaa waa joogay yacni dunuubta xaggaa taalla iyo ta xaggan taalla waa kala nooc mashaakilkaad markaad xaggaa joogtay ka fakaraysa iyo kaad halka ka fakaraysa waa kala nooc inteena ugu badani waxaynu xal u raadinaynay nabad cabsi badan baa taallay nabad iyo xoogsi shaqalaan labadaa inaynu ka baxno laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii ama dad badani labadaas si uun inay u maanij gareeno xal u heleen laakiin beledii halkan taallay kumaynan talagelinba markaynu soo soconnayna wax iskamaynan weydiinnin markayna qabsatayna waxba kamaynan odhannin sidaa awgeed waxaynu ka luminay identity-gii huwiyadii waa lunta huwiyada ama identity-ga dadku uu leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay waxa ugu weyn laba shay waa af iyo diin waa labada shay ee ugu weyn ee bini aadamku ka dhigto maxay identity uu ka dhigto labadiiba ama waaba sii gabaabsi ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadaynu ku hadallaa isku mid maaha identity-gii luqannimo ee Soomaaliyeed way lumayeen waxaa kaloo sii lumaysa identity-gii diineed muxuu u lumayaa adigu laba wax baad haysato ku ilaaliyay identity-gaaga diimeed koo waxaad timi adigoo mumayisa adigoo caqligaagu u dhammaystiran yahay adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahay rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay مثلا qofka zinaysta wuxuu zinaysanay isagoo arkay inuu xuma samaynayo laakiin uu arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan value-gi ahaa inay zinadu xunta waad rumaysanay walow kuba dhacba value-gaas waad rumaysanay adoo marka hore waxa timaadigoo values-kaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo aqaaidaada iyo waxaad rumaysantahay ku dhan yihiin waa mar labaad adigu indimaaj lamaad samaynin gaalade waad ka soocanta tina ugu badani shaqaad soo shaqaysaa waxa laga yaabaa inta ugu badan 10 gaal inay wada shaqaysaan ama 10 kaana 5 shiya ka timi kow gaal ingiriisi iyo dadkan iyo afkaarta qabaan iyo waxa qabaan waxa laga yaabaa shaqada dhowr qof inaad isku aragtaa bas markaad ka soo rawaxdana ama masaajidka timaada ama maqaaxidii Soomaalida timaada xiriir kale idin kama dhaxeeyo marka adigu kow markii horena waad ilaashanayd markii labaadna meel aad ku gabato kala heshay Soomaalidii iyo masaajidkii iyo maqaaxidii intaas socotay